kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaal xiise leh oo aynu ku eegayno warbixin xiise leh oo ku saabsan baadariga lagu magacaabo Paul Mackenzie oo hadalhayn ka dhaliyay guud ahaan dalkani Kenya. Paul Mackenzie Nthenge waa baadari markaasi diinta Kiristaanka wax ka bartay. Waxa uu lahaa xarun lagu magacaabo Shakahola. Halkaas waxa uu wax ku bari jiray arday wax ka barata diimaha markaasi Kiristaanka ah iyo dad markaasi u adeego. Wuxuuna madax ka ahaa dhowr kaniisadood oo xarumo kala duwan ku leh ismaamulo badan oo ku yaala gobolka xeebta iyo sidoo kale magaalada Nairobi. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayay sheekadiisu soo shaabaxday kadib markii in ka badan 26 qof oo meed laga soo saaray qabuur ku yaala xarunta Shakahola oo markaasi Paul Mackenzie isagu uu ka ahaa madax. Ciidamada booliska oo baaritaano qoto dheer sameeyay ayaa sheegay in ay jiri karaan dad kale oo iyagu halkaasi lagu aasay. Waxa ciidamada iyo dhaqaatiir iyagu baaritaano sameeyay ay sheegeen in dadkan ahaayeen dad markaasi qaarkooda iyagoo xanuuno kala duwan qaba oo nolosha markaasi qaba la aasay, balse warbixinada ayaa waxa ay intaasi ku darayaan oo ay sheegayaan in Paul Mackenzie uu ahaa shakhsi lahaa fikrad adag oo ka duwan diimaha marka loo eega tan isagu u daliishanaya ee ah in uu markaasi ahaa nin diinta wax ka bartay. Wuxuu ahaa nin wax baraya arday badan oo iyagu markaasi jeclaa in ay wax ka bartaan arrimaha la xiriira diimaha. Dhalinyaro badan ayaa iyagu uu markaasi ka soo saaray iskooladii waxbarashooyinkoodii kala duwanaa sababo la xiriira in markaasi wax ay ka baranayaan xaruntaasi Shakahola oo iyadu ahayd xarun markaasi lagu tababaro laguna baro fikradaha kala duwan ee diimaha. Wuxuu sidoo kale geystay sida ay markaasi baaritaanadii warbixinada lagu sheegayo falal ka dhan ah arrimaha bini'aadanimada. Wuxuu ahaa shakhsi markaasi haweenka uurka leh ku qasbi jiray inay iska soo saaraan caruurtooda ama ilmaha markaasi uurka ay ku wadaan. Sida marka loo eego ka soo horjeeda qodobka markaasi dastuuriga ah ee dastuurka dalka Kenya ku jira ee ah qodobka 26 xarqadiisa 5 oo iyadu markaasi sheegaysa in markaasi aan la soo saari karin ama aan dibadda loo soo saari karin ama aan ilmaha la iska soo tuuri karin. Balse Mr. Mackenzie iyo xarunta Shakahola waxa lagu baranayay qaabka sidii loo sameyn lahaa. Waxyaabaha kale ee ku jira waxa ka mid ahaa in haweenka iyagu lah dhiigga caadada ay iyagu markaasi ahaayeen kuwa aanan si toos ah u helaynin, isagoo markaasi u sheegaya inay ahaayeen ama ay lahaayeen arrimo caafimaad oo la xiriira. Waxa markaasi uu ahaa kuwa Mackenzie waxa uu ahaa shakhsi isaga ku qasbi jiray haweenkaasi in ay markaasi dhiiggaasi xaydka aysan helin maadaama ay markaasi yihiin shakhsiyaad dabeecada iyo dhaqamo gooni ka leh dadka kale sababo la xiriira inay yihiin kuwa diinta u adeega. Caruur badan oo da'dooda lagu sheegay inay ka yar yihiin 10 sano ayaa iyaguna ahaa kuwa markaasi xaruntaasi Shakahola ka adeegi jiray oo aanan dugsiyada iyo iskoolada aadin. Fikradaha qaldan ee la xiriira diinta ayaa uu dadka barayay ayaa ahaa in ragga iyo dumarka isqaba iyagu ayna isku tagi karin. Warbixinada ayaa waxa markaasi ku jira in markaasi haween badan iyagu ay sheegeen inaysan raggooda arkin bilooyin sababo la xiriira inay ahaayeen dad ka adeegaya xarunta Shakahola oo ah xarunta markaasi Paul Mackenzie Nthenge uu isagu markaasi maamulaha ka yahay. Warbixinada kale ayaa sheegaya hooyooyin in caruur badan ay markaasi u dhinteen gaajo. Dhanka kale warbixinta ayaa markaasi nuxur gooni ah sii yeelatay kadib markii 26 qof oo kale oo meed laga soo saaray xaruntaasi Shakahola. Ciidamada booliska ee iyagu markaasi howlgalka sameeyay ayaa sheegay in dadkan qaarkooda ay ahaayeen dad gaajo u dhimanaya. 15 qof ayaa la sheegay in ay markaasi ahaayeen kuwa gaajo inay u baqtiyo qarka u saarnaayeen. 4 qof oo ka mid ah ayaa la sheegay inay iyagu markaasi dhinteen kadib markii loola cararay isbitaalada. Warbixinta ayaa sidoo kale waxa ku jira in shakhsiyaad kale oo iyagu ka tirsan xaruntaasi Shakahola ama ka adeegaya ama ka shaqeynayay oo ahaa dad wax ka bartay diinta
iyaguna markaasi baaritaano lagu wado. Si kastaba ha ahaatee Makwenzi ayaa toddobaadkii hore markaasi ciidamada ay xireen, waxaana markaasi lagu soo sii daayay damaanad lacag oo dhan 100,000 oo shilinka dalka ah. balse waxaa la filayaa in 2 bisha May oo ku beegan isbuuca inugu soo aadan markaasi mar kale lasoo taago maxkamad, isagoo lagu soo oogayo dacwado badan oo ay ka mid tahay xasuuq, dhimasho iyo sidoo kale meydadka qabuuraha dadkaasi laga soo saaray oo la sheegayo in iyagu markaasi ama isagu uu lahaa sababtooda. daawada waa mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa warbixinta dhamaadka. fadlan soo dhawow muuqaalkana subscribe inoo saar. waa mahadsantahay.